بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. waxaynu u baahanay inaynu tilmaamno macaalim iska guud oo laga yaabo inta badan inaad garanaysaan, laakiin aan jeclahay inaan dib idin xasuusiyo. waayo siyaasat lumma, asiyaasa, inkastoo eraygu aada moodo waktiyadan dambe ama cusurtan dambe eray la nacay inuu eegiyey oo kaanama siyaasa iyo siyaasiya waxaa markaad maqasho kaanama nifaaq iyo munaafiqnimo iyo wax la hadle laga hadlayo kale u eg tahay. laakiin waxaynu naqanaa siyaasat lumma inay tahay ricaaya shu-uuni nnaas, ilaalin la ilaaliyo ummadda shu-uunteeda. saasa yasuusu yani min hada alqabiil inay ka timi. dadka ilaaliya ummadda tanina inay dad gaara iska ahaayeen, oo hataa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayo reer banu israa'iil, kanat banu israa'iil tasuusuhum alanbiyaa kulamaa halaka nabiy khalafa nabiyun min bacdi walaa nabiya bacdi. wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam, banu israa'iil waxa siyaasadooda wadi jiray ama hogaankooda hayn jiray ama hagi jiray ummadda. siyaasaddu waa hagitaan, dad la hago, salaa wanaagga lagu hago iyo xagga khayrka qabta. waxaa hagi jiray buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam reer banu israa'iil ambiyo ama se nebiyo. nebiyadaasi khayrkay dadka u hogaamin jireen. kulamaa halaka nabiyun khalafa nabiy. marka nebi uu geeriyoodaba nebi kale ilaahay soo diri jiray subxaana wa tacaala. walaa nebiya bacdi buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. waxaan leenahay siyaasat lumma waa qadiyadaasi ricaayada ku saabsan, ricaaya shu-uuni nnaas aw shu-uuni lumma. markaynu ummadda hogaaminteeda waramayno iyo riixitaan loo riixo xagga khayrka qabta iyo wanaag lagu hago, waxaa habboon marka hore in waxoogaa aynu ka nidhaahno malaa kooban caqabaadka ummadda haysta ee u baahan in laga hago markaasi ama loo toosiyo. cumuuman qofka muslimkii wuxuu rumaysan yahay kitaabka qur-aanka ah iyo sunnada nebigu calayhi salaatu wasalaam inay yihiin waxyigii alla soo dejiyey ee loogu talagalay in lagu hago oo lagu hanuuniyo bini aadamka dhammaantii. innaga haddaba dhibtayna haysataa ma mushkilad ama ma dhibaato dadba? qiyaada dhibaatadeed qura miya? ma dhibaato shacabba? ma dhibaato caalamiyo aan gacanteena ku jirinba? waxaanaynu u baahanay inuu hagnaa muxuu yahay? waxaad moodaa ummadeennu inay isku dayday inay qof bedasho, dabeetana way bedashay, waxbaa iska din waayey. way ku noqono waynu bedelay. lixdanaadkii qaar baa la saaray, dabeetana waa la dhigay, waa laga qusto, waa la bedelay. kuwo kalaa la saaray, waa la bedelay. kuwo kalaa fuulay, waa la bedelay. ilaa hadda waa la bedelayaa. kulamaa bedelka la bedelabana waxaabaad moodaa ila alaswa unba inay usii socoto, xagga hoose inay usii socoto. mushkiladayna haysataa markaa ma mushkila qiyaadiya faqad ba? ma mushkilad jamaacaba? waa dhibaatadeednu waa noocma, caqabaadkaynu hortaaga waa noocma. waxaan leenahay caqabaadkaynu hortaagani waa dhowr caqabo. waxaan odhan karaa caqaba caalamiya wayna hortaagantay oo shalayta in badan lagu celcelinayay. dunida inay ku nool yihiin shayaaiin maakiri oo aan khayrka jeclayn, dad badan oo danaystayaala, caalamkiioo maanta noqday kubad yar oo meel kastaba dhowr saacadood lagu gaadhayo, akhbaartiisu ay isku gaadho wakti daqiiqada ka yar, bas mubaashar ama tv iyo wax caalamka ay ka dhawaaqayaan oo dunida halka u dambaysa waxaa ka dhaca secondkiiba uu halka kala gaadhayo. adigoo gurigaaga iyo dadkaagaad ka timi min waraai sitaar laga ta'siirinayo
oo waxa laga yaabaa ummad dhan oo Soomaaliyeed inay BBC hagto waxa laga yaabaa ummadda daaya waxa laga yaabaa magaalada jooga magaalada gudaheeda waxa ka dhacaya inay iyagu ku hagaan oo uu kaaga warramo asla BBC ma dhageysto waxa la yiri sakadaasi jeedo qolad ku dishay waa meesha joogtay hadda ayaa laga hagaya oo lagu tusinaya caqaba caalamiya baa jirta aad u weyn oo ay ugu talagaleen dadka markaas saytarada ay gacantooda ku jirta inay caalamkan sii dumiyaan aan iyaga ahayn caalamkan iyaga ahayn matxana buu ku jira ama taayir wareegayu saarayo aan loo naxayn kaasi waa caqaba jirta caqabadka caalamiga ina haysta waxa kamida waxaynu dhaxalay waa isticmaar maanta bilaabmiya waxa kan maaha waa isticmaar aynu quruun ku soo jirnay waxaynu dhaxalay dacfi tiro badan oo dadkii muslimiinta markii hore haystay waxaynu dhaxalay ahd al-isticmaar iyo dacfigu ka tagay waxaynu dhaxalay thaqaafaadkii reer galbeed iyo aragtidoodii iyo waxoodii wali sidii inoogu dhex jira waa caqaba meesha taagan waxa kaloo ina haysta dib labaad oo ina hor taagan dhibta labaad ee ina hor taagani waa dhib shacbiya waa dhib ummadda ka timi xaggeeda ummadda aynu rabno inaynu hagno ummadda aynu rabno inaynu hanuunino waa dhib iyada ka timi dhibtaasi ka timi kow waxa kamid ah aljahala bikulli anwaaciha waa ummad aan xadaaro lahayn ee jahli u daboolay jahligaasi wuxuu ka haystaa dhinacyada oo dhan waa jahli aad u ballaadhan waa jahliga gaadhsiisan inaynu gaajo u baktino iyadoo kalluunkeena badda ay soo tufto yani qof gaajo u baktinaya oo badda dhinac taagan oo haddana baddu kalluun ay soo tuurayso dabadda usoo tuurayso gaadhi kari waayey inuu kanuun cuno ama si uu u cuno garan kari laha xabad kalluuna si uu qabsado samaysan kari laha waa jahli nolosha jawaanibteedoo dhan inaga haysta nolosha la nool yahay jawaanibtay leeday oo dhan waa jahli inaga haysta oo aad u ballaadhan ha ku xisaabtamin beersantka yare waxbartay waa jiraa tiro yaroo waxbaratay laakiin markaad ummadda u eegto Soomaali la yidhaahdo waxaad dareemaysaa inay yihiin 1% inaanay noqon karin haddaad badiso inaad tidhaahdo waa 2% inta wax qorta ummadda 2% ay wax qortaa waxaad garan kartaa dhibtu halka ay ka gaadhsiisantay xataa mabda aynu ugu yeedhayno ee rabna inaynu ku bedelnaa dhibtaas ka haysata oo islaamka laftiisa aanay fahamsanayn in yar oo ay dhaxleen oo heritage ahaan ama dhaxaltooy ahaan ay u haystaan mooyaane caqabaad kale ayna haysta waxaa ka mid ah baan odhan karnaa caqabaadka ayna haysta oo malaa jahliga la sii socda albadaawa waxaan odhan karo cadam taxadur reer magaalnimo la'aan reer magaalnimadu malaa waa eray sida xunna loo adeegsadee maxaan ku tilmaamaa qiyam xadaariya baynan lahayn ama si kale haddaan u tilmaamo badwiga ninka badowga la yidhaahdo waxyaabaa lagu yaqaana waxa lagu yaqaano waxaa ka mid ah waa waxyaabo aad u cajiib oo badowgu caan ku yahay oo caalamka oo dhan uu kaga gedisan yahay waxyaabaha badowga lagu yaqaano waxaa ka mid ah alfawda وعدم الانبضاط وعدم الانضباط أما الحرية المطلقة وضد كوكبعة ميل أن قانون كتيرين ميل بدون قانون أبي كوكبعة مركان لا قانون كمتير محانو كتير قانون كضدك إنه وضن ولا ده سامح ماله كاين عدلا وسكدجا قال سياري سؤال كخوف أفسدا وحي أكتيس صامرنا حولا نوجد بويد هذا اللي مسود واده keligiiba halkaa jooga waxaan aad u dareemay waa anigoo xabsiya meel ka baxay baan baadiye tagay hawd wixii ugu horeeyay aan dareemay wuxuu noqdaa bal caalamkan aan booliiska lahayn ee qaanuunka lahayn ee meel aad u socotay idigu caalam dhan oo kullu hurriya mutlaqa waagu markuu bariyo ninku xaqu doona u dhaqaajinaya xaqu doonana wuu kacaya waa qof ku taracrucay markaasi inuu hurriya mutlaqa haysto oo aan la qaydin waa taqaan Soomaalida hadda tiraado
iminka markaynu halkan nimin waxyaabaynu iska baranay baa jiro aan cidi inugu qasbin laakiin markaanu aragay dadkan xadaarada laynu iskala dhaqanno مثلا waxa laga yaabaa warqada inaad farays ka mariso weliga inaad wadada ku turin aad iska sido qiyam xadaari oo lagu baray inaad waxan meelaha ka nuskageyn waxa laga yaabaa gaariga sigaarka lagu cabbo haday ku qorantay inaad weliga ku cabin laakiin markaad baqaaxida Soomaalida tagto waad ka shidaysaa iyadoo ku qorantay lagu cabbo way waxaad ogtay inaad u timi fawdawiya uma nidaamka iyo waxa jeclay markuu gaalka u galayo sigaarka cabbi maayo way waxa ugu qoran boora sigaarka lagu cabbo qaanuunku ixtiraamaya laakiin markuu adiga ku yimaado konton boor hadaad ku qortay waa cabaya sababta waxay tahay wuxuu ku ogiyay deena wada tiineen waar nagu cashuurin meesha baa laga yaabay inuu ku yiraahdo hadaad tidhaahdana war laayaxadeena dhigaysa inaan meesha wax lagu cabin idan waa ummad ku taracrucday ama ku kobocday xorriya mutlaqa xorriyada mutlaqa ay waa bi'a fawdawiya waayo bi'ada noocaasi u kacdaa inta badan had iyo goor waa bi'o nolosha ay fududay marka dhan laga eego ay naadirtay al-ustaad maxamed qutb wuxuu yiraahdaa bi'ada caalamul islaamigu inta badan uu ku noolyahay buu waa meel ay naadirtay qofku inuu gaajo u dhinto buu waa meel ay naadirtay buu qofka in baraf dilo iyo qabow waa meel kulayla buu yiro qofka aqallu taam ba ku filan yani dhulka qabow waa inaad in badan shaqaysaa wax badan cunta laakiin markaad meel kulul joogto cunada in yar ba kaaga filan oo aqallu taam ba qofka ku filan waa meel buu leeyahay qofku markaasi inta badan ay isaga barteen intan yarna in la iska heli karo si kastaba lagu helay shahaad lagu heliya mid kale gurigiisa laga soo cunyaa inta yar beerka lagu toosinayna waa in la iska heli karo waa meel qofku dareemayo shalay wuu noolaa maantana wuu nooliyay waa mustaqbalka uga sii fikiraya barina iska noolaanaysaa waayo berrita waxay la tahay shalay sida ay ahayd unde maadaama shalay baa uu noolaa aan waxaan u khitadayn jirin u fakari jirin nidaam u baahnayn berritana muxuu uga fikirayaa soo sidii uu noqon mayso sida daraadeed waxa la fududay inay cayn ka noqoto bi'ada noocaas waxa lagu yaqaan afawiya shadiida ama waxa lagu yaqaan qasr an-nafs waa dad aan u adkaysan karin maamul waqti dheer u baahan hadduu daacadnimo kasta kugu ogi oo wax ku yara dhibaa wax yara wadaano bil marka la wado oranayo war waxa ma soo wadaan bil dhanba dadku daba socdo wax la haya ma jirto way nafas tawiila male khutta baciida male waxa si oo dhamo ku adag ninka Soomaaliga waxaan idin tusinayaa maanta waxa la igaata la sheegay imka haddaan idin wacdiyo oo idin raada ilaahay dartiisa uu bixinaya jeebka gacanta gelinaysa wada bixinaysa haddaan idhaano wariyaan waxa la bixiyo maxaynu bixinaa haddaad tidhaahdaan aan idhaahdo 500 maanta dhiga waxa laga yaabaa in badan oo Soomaaliyeed inay 500 dhigto laakiin haddaan idhaahdo 500 sanad baan idinku qaybinaya bishii 40 karawnaad soo bixinaysa ama 20 karawnaad in misaal laazimaysa aad malaynaysa inay bishii 20 karawna bixiso bishan 20 kan inaga wada bixiya bishan ku soo ridaysa tadambe dadkii 600 ba ku soo ridaya ta ku xigta 300 qof intaanay sanad gaadhin u badarkaysa oo iyada ay kugu soo hareen 10 qof dadkii markii hore kunka way nafas tawiila male khutta baciidati al-amada ma qaadi karo waa umma badawinimo ku taracrucday waa sifa reer baadiyenimadu leeday oo ah inuu fawdawi iskaga socdo arintiisu ay ahaato oo maxay kula tahay hadda waxaana la fuliyo wixii aan hadda la fulinayna inaanay qiimo badan lahayn in laga sii fakaro waxaan leenahay waa ummad noocaasi u kobocday ama afkaarta noocaasi haysata badawnimadu waxay kaloo leeday haddaynu nidhi waxay leedahay fawda iyo cadam al-indibaat waxay kaloo leedahay العنف وسرعه اتخاذ القرار بيلاده ربادينimadu waxay kaloo leedahay ama badaawada sheegaya ونول qalqalafsaniya aaday ku dhisan nolol qalqalafsanaan iyo aaday ku dhisan adaygu dhanna faa'iido kaleeyay dhanna xumu kaleeyay booskiisa markuu dhaco faa'iido leeyay qofku jihaatamay markuu caynkay adaygiisa faa'iido leeyay laakiin tabciga iyo dhaqanka iyo akhlaaqiyadkiisa waxa kan haday qofka qalqalafsanaadaan waa yara dhibaato badawnimadu waxa kamid ah awaatiftu dadku markay kacaanun ayuunba qaraarka la gaadha waxaas baa la sheegay saas baa la yidhi macaynkaas maxaynu yeelnaa imka haddaaba go-aan laga gaadhaya lagama yaabo in daraasa la sameeyo lagama yaabo in waxaan la baadho lagama yaabo in waqti dheer la qaato hadda ayaa la isku dayayaa wax walba in go-aan rasmi oo dhaqso ah laga gaadho weliba waxa laga yaabaa inta markaa wada joogtaan inay go-aanka gaadho magaca dadka ay matalayaan oo dhanna ku qaataan
iminka reerahan waxaa laga yaaba inu idhaha reer bacaynkaas ka soo baxday way adagtay reer intuu ballan qabsado inuu idhaha maalintaasa inoo shiro wax aqoontiisa iyo dadkiisa iyo waxa uu isugu yeedho inuunbaa meel iska helis inu intay waxgaadhaan bay magaca reerkun ku iclaaminaysa unoo reerkuna dhib badan kama qabe uu iska aqbalaya waxaa laga yaabaa inta halkan joogta in yaroo isku reere hadday maanta intay halkan wax ku qabato ay dabeetana soo iclaamiso in dadkuna ay yidhahdaan reer hebel baa shiro caynkaasay gaadheen waayo waa qaraaraadkeen oo dhan baa waxay iskaga salaysan yihiin surca in loo qaato ummadda badwiga ah waxay kaloo caan ku tahy tacasub alqabali ayay aada caan ugu tahay tacasubka qabaliga ahi qabiilku society-ga qabiilka u noole waa qaab ka mida nudumka ijtimaaciga ee loo noolaado asliyan laakiin wuxuu leeyahay boos iyo meel ku cuntanta waayo waa heer ka mida baynu odhan karnaa heerarka dadku uu noolaado waayo dadka badwiga ahi ninka baadiye jooga ee ahlu baadiye qabiil ka tirsani cashiiro ama qabiilo ama reer buu fardi ka mida yihi reerkaasuu hiil iyo hooba siyaa ula taagan yihi waxa reerkaas korkooda ana waa saaran yihi waxa uu xuquuq leeyina wuu leeyahy marka loo eego reerkan muxuu ugu tiirsanyay marka loo eego waxay yidhaahdaan asraac min ajli albaqaagay sheegaan inuu noolaado reerku waa inu wada saxsadaan la wada guuraa wax laysku taraa haddii xooluhu reerkan saasuu uga tirsan yihi wuxuu kaloo uga tirsan yahay reerka wax allaaliya waxa kusoo kordhee duulimaad iyo weerar iyo wax kastaba waa inuu ka tirsanaada ninka reer baadiye mambuudka laga dhigo ee aan qabiiladu markaasi ay fitnaysa wuxuu ahaan jiray bay dhahaan fii cusuuri iljaahiliya lula qof damigiisu mustabaax yahay ciddii doonta ay dili karto ciddii doonta ay xoolihiisa dhici karto waayo reer tabaniye qadiyadiisu ma jiro markaa ninkani waa iska de waa ku yidhi waa inan gumeed iyo waa gun iyo waxaan waa dad ama yaraaday ama qadiyadooda iyo xuquuqdooda cid tabaniday waayey dabeetana intii kale ay markaasi dul mareen oo ay cagta mariyeen waxaa jiri jirtay markaynu eegno dadkaasi qaabkay u noolaan jireen masalan jaahiliyadii carbeed oo aan sidhaahda mararka qaarkood qaab qabiilkood iyo qaab qabiilkeenu male aada bu isugu dhowaa siday qaraaraadka sida degdega ugu gaari jireen siday casabiyadooda iyo qabiilkooda u kacsanaa mid kamida baa gebiyey markaasu wuxuu leeyahay qatil ilqawma ya khuzaacu walaa yadkilkum min qitaalihim fashalu alqawmu amhaalukum lahum shicrun fi ra'si laa yantashiruuna in qutiluu buu leeyahy yani waxa uu wax ku baysgaraynayaaba waar iyaba timay leeyihin hadday dhintaan feedhan maayaane idina halumu buu leeyay dagaalama waa qof waliba timuu leeya hadduu dhinto timu waa ka dhacayaanuune dagaalka haba yaraatay ha u gaagaabsanina buu leeya hore u gala waxaa laga yaabaaba inay u arki jireen inuu reerku dagaal galaa oo wax iska dhiciya inay tahay meelaha reerku uu magaca ku helo reer weligii iska miskiin aan weligiiba dagaal gelin oo dadka iska nabadgeliyo inaan ahayn reer magacba soo heli kara waxaynu garan karnaa noocay u noolaayeen mid kamidabaa faras uu leeyahay oo yar buu gabay u tirinaya markaasu muxuu leeyahay ida almuhratu shaqraa adrak yani gabay dheer intu soo tiriyo wuxuu leeyahay baha faraskayga yari ee fiicani hadduu gaadho dhabarkiisu mid la fuuli karo wax la fuulo noqdo fashaba ilaahu lxarba bayna alqabaa'ili buu leeyahy ilaw reeraa dagaalka dhexdid buu yihi maalintii taasi i qaan gaadho wuxuu rajaynayaa in dagaal la dhacaan mar haddii bahashiisa yare ay qaan gaadho wauqad naran baynahum yani wuxuu tilmaamaya ilaahu dab ka shid dhexdooda aan damin oo xoog u ifa casabiyadooda qabiilku waxay taagnayd kuwii uu tilmaamayey shaacirkoodu in ana lam ansur akhi wahuwa aalimun cala alqawmi lam ansur akhi xiina yudlamu wuxuu lahaa walaalkay bu hi haddaanan u hiilin marka uu wax dulminayo ma berrinta marka la dulminaya wax ka dhicinayaa buu leeyahy yani in adeerkay markuu wax dulminaya buu leeyahy haddaan dulmiga ugu hiilin waayo ma berri marka wixiisa la dhacaaban haddaan wax hiilinaya buu leeyahy maanta wayna raaca waa kii kale mid kale lahaa wama ana ila min huzayin awat yani anu miyaan ka tirsanin reer hebel mooyaane buu lahaa reer hebel hadduu lumana waan la lumi un hadday jannada galaanna waan la galin weeyaan hadday naarta galaanna waan la geli doonaa waxaad ka garan kartaa ashcaarta jaahiliga markaad dib ugu noqoto shaacir jaahiliyaba reerkoodu canaananaya reer kalena wuu ammaanaya reerka kale muxuu ku ammaanaya reerkooda se muxuu ku caayaya ammaanta reerka kale uu siinaya waxay tahay
nin iyaga ka mid oo qaylinaya iyagoo hayaayay leh dabeetana may odhan buu yidhi war maxaad ka qaylinaysaa seeftay la dhinac carareen buu leeyahy idinkuna markaa tolkiin soo qayliyaan baa odhanaysaan buu yidhi maxaa dhacay wuxuu ka xanaaqsanyay maxaa dhacayda in la isweydiiyo marka wuxuu leeyahy marka ay soo qayliyaan laa yasaluuna akhaahum xiina yandabuhum fi naa'ibaati calaa maa qaala burhaanu buu lahaa ma weydiiyaan buu yidhi reer hebel markuu walaalkood dagaalka ugu yeedho ma yidhaahdaan war waxaad sheegaysa maxaa dhacayo see wax yihiin way dhinac ordaan idinkuna tolkiin baa qaylinaya waad ka aamusantihiina waa joogtaan yani waxay ahaayeen bulshadu badaawada loo yaqaano saddexdaas sifaynu odhan karnaa bay leeyihin inay ummad nidaam aan ogolayn yihiin oo nidaamka aada u neceb aan u hogaansanayn waxooduna fawda iskaga salaysan yihin inay yihiin bulsho had iyo goor lagu yaqaano qaraaraadkoodu si degdega inuu u go-o inay yihiin dad lagu yaqaano walaa acmaa inay siiyaan qabiilka ama casabiyada waa caqaba shacbiya idan waxayn leenahay quwa caalamiya way jirtaa oo waddankeena iyo dadkeena iyo ummaddeena khalkhal gelinaysa waxaa kaloo jira baynu leenahay jahli shacabkeenna haysta waxaa kaloo jira baynu leenahay xadaaradeena xadaaro badwiya oo reer baadinimo ku salaysan intaa waxaa raacdoo kale baynu leenahay min xaysu alqiyaada saytarat alcilmaaniyiina fi lxukm dad cilmaaniyiina malaa cilmiba maahe waa caalamaaniyiin nisba ila alcaalam dad caalamaaniyiina caalamaanigu waa maxay waa dad diidan inay nolosha u hogaamiyaan ilaahay yani tawajuha siyaasi alislaami waxa weeyaan in dadka ilaahay loo hogaamiyo waa tacbiid lbashari lilahi subxaana wa tacaala bini aadamka o dhan in alle looga dhigo alle loo hogaamiyo weyaan siyaasa alislaamiya wax kale sheegi mayso laakiin kooxdani waa koox rabta inay taa ka reebto oo ay yidhaahdaan cuquushayada iyo afkaartayadaanu ku maamulana waa secularismkaynu maqli jirnay reer galbeedka caanka ku ahaa fi'adaa yar oo isticmaarku uu rabaystay oo isagu uu tababaray oo aada wax u baray oo uu baray in ay bulshada isaga gadaashi hogaamiyaan ayaa isagu markuu tegay hogaankii qabtay yani waxaan odhan karaa isticmaarku intuu albaabka ka baxay ayuu mudaaqada ka soo galay khalas waxa isgadiyey wuxuunbuu ahaa ninkii meesha fadhiyey erayada aadka u cajiibka le aan dib u xasuusto waxaa ka mid ah lixdanadii ayaa waxaa la yidhahdaa nin soomaaliyeed oo kristan ah yani fi ayaro soomaaliya jirto cadan iyo meelahan intay baadarigii gashay oo ingiriisku gaaleeyey oo markaa xoogaa uu soo baray oo christianity qaatay ayaa baarlamaanka isu soo sharaxay soomaalidu markaasi waxaa la weydiiyey ninkan baarlamaanka isu saad u helaysaa baa la yidhi baarlamanka aduu nin kristan aba tahe soomaalidu say kuu dooranayaan wuxuu yidhi tolkay diin taa ka yaro qiimo badan bay rumaysan yihin yani kristan iyo muslim maaha waxa wax lagu kala dooranaya lagu kala saaraya arrin kalea jirta buu yidhi nin reer hebela baan ahay buu yidhi oo tolkayna reer hebel bay rumaysan yihin yani mashkilad maaha inaan kristan hayo inaan muslim hayo kaan ahay arrintii waxa weeyaan inaan reer hebel ahay mar haddaan reer hebel ahayna wuu imanaya ficlanna wuu yimi waxaan leenahay qadiyaddu maxay ku salaysanayd dad cilmaaniyiin aan mabda'a aynu rabnay in laynagu hogaamiyo aynugu hogaaminayn baa caalamulislaam oo dhan xukumay waa iskaga mid kuwii magaca kristanka la baxaya kuwii magaca muslimka sitay waayo isku manhaj bay watay isku qadiyad bay siteen isku mabda' bay ahaayeen isku diiwaan bay xambaarsanaayeen waxaaba laga yaabaa kii magaca kristanka watay isagu inuu dee cadaystay oo la garanayo oo lalahaa waa gaal hebel inkastoo la daba socday laakiin kan muslimna waa loo haystay waxana isagaa dadka ku waday waxaan leenahay taasina waa caqabo kale oo meesha taalla waxa meesha yaal baynu markaa leenahay ummadda aynu rabno inaynu hogaamino oo aynu ku hogaamino islaamnimo caqabaadkaas baa haysta baynu leenahay caqabada caalamiga iyo taa shacbiga ama daakhiliga oo aynu ku sheegi karna inay tahay ummad jahli hayo aynu ku sheegi karna inay tahay ummad aan xadaara lahayn ee ahlalbadwi ah aynu ku sheegi karna inay yihiin ummad ay u taliyaan dad cilmaaniyiin intaasoo mashkilo ayaa isugu biiray ummadda intaasoo mashkilo isugu biirtay sidee baynu u noolayn karnaa markaasi ama se usoo saari karnaa maxay tahay macaalim asiyaasa alislaamiya maxay tahay macaalimta aynu u baahanay inaynu ka indilaaqno oo ka bilowno si aynu ugu soo celino islaamka dadkii si aynu manasat alxukm ama heerka maamul u keenno
dad islaamiya si aynu uga dhigno nidaamka nidaam islaamiya si aynu u helo dad fiican oo muslimiina dhowr arrimoodba waa laabud markaa inaynu ka fakarno arrimaha laabudka inaynu ka fakarno waxa ka mida baynu leenahay arrinta ku saabsan mafhuumka siyaasiga islaamiga inuu caddaado inuu waadix noqdo aada u cadiyo siyaasadda islaamigii mafhuum caqiida bay ka bilaabantaa waxay ka bilaabantaa baynu odhan karnaa mawduuc ay culamada muslimiinta u yaqaaniin alwalaau walbaraa alwalaa walbaraa waa mafhuum caqadiya oo siyaasiya baan odhan karaa maxaan uga jeedaa qofka muslimkaa dadka badh waa shacab badhna waa qaada waa hogaamiye hogaamiye waa qof kastoo dadka xil u haya ka masaajidka xukuma ka jaaliyadda xukuma ka ururka yar xukuma ka wada hogaamiye waa dad hogaan haya oo isku dayaya inay ummad hogaamiyaan dadna waa dad la hogaaminayo iyo qaabka wax loo hogaaminayo waa saddexdaa shay baynu u baahanay inaynu si fiican u ogaano qofka maxaa looga baahan yahay maxay tahay siyaasadda aynu ku tawjiihinayno qofka muslimka inuu yeesho waxa weeyaan inaynu weydiino su-aal ah qof kastoo muslim uu isweydiiyo man ana kumaan ahay anigu mayna nebi aadan baan ahay oo humanitarian baan ahay oo dadka waxaan u ilaalinayaa xuquuqul bini aadamka calaa asaasi hada almunطalaq miyaan ka soconaya anigu ma nin madow baan ahay oo xuquuqda dadka madow baan u dagaalamaya oo nin afrika ka yimo caynkana baan hoo dabeetana madowgaan raalli gelinaya anigu ma nin soomaaliya baan ahay oo ummadda soomaaliyeed baan hagaajinaya oo qawmi baan hoo qawmiyadaasaan ilaalinaya anigu ma nin qabiil ka dhashay baan ahay oo nin reer hebela baan ahay oo reer hebel iyo dantoodaan ilaalinaya oo iyaga ayaan wadaya manana kumaan ahay waa inaynu barraa qofka muslimkii kuu yahay markaas baa caddaanaysa cidda uu hiilinayo iyo cidda uu ka hiilinayo cidda uu raacayo iyo cidda aanu raacaynin hiilka iyo raacistu xoog iyo xoolo qura la bixiyo maaha xataa waa naftaadu wararka qaar baa markaad heshaa naftaadu ay ku raaxaysanaysaa wararka qaar baa naftaadu markay hesho aad u nacaysa aad ka barooranaysaa kumaan ahay waa inaynu weydiinaa qofka muslimka ah waa inaynu sheegnaa qofka muslimkii kuu yahay waxaan leenahay qofka muslimka ah waa qof rumaysan mabda'a universalism nationalism maaha waa universalism wuxuu rumaysan yahay waa mabda' caalamiya buu haystaa kuma xidhna midab kuma xidhna qowmiyad kuma xidhna gobol kuma xidhna dhul wuxuu ku xidhan yahay ideology caqiido mabda wuxuu rumaysan yahay buu ku xidhan yahay waa wax qof waliba dooran kara buu ku xidhan yahay inta kale ma dooran kartid ilaahay baa ina aadam kaa dhigay ilaahay baa ama madow ama caddaan kaa dhigay ilaahay baa ama soomaali ama carab kaa dhigay ilaahay baa reer hebel ama reer hebel kaa dhigay doorashaba kuma lihid waxaan leenahay qofka mu'minkii waa inuu ahaada wuxuu dooran kara buu yihi dabeetana wuxuu yahay qof muslima qof muslima markuu yahay waxa u caddaanaysa yuu u hiilinayaa yuuse ka hiilinayaa siyaasaadkiisu xaggee ujeedaa asiyaasa alcaalamiya dunidu way is haysaa meel kasta waa la isku hayaa soomaali qura maaha meel kasta waa la isku hayaa caalamka mujtamac duwali wax la yidhaahda baa jira mujtamaca duwaligii qadaayaadkaasi caalamka ka socda mawaaqif buu ka leeyahy almujtamac almuslimi alcaalami mawaaqiftu ka leeyahy waa maxay mawaaqiftu ka yeelanaya waa siyaasadiisa xaggee u socoto idan macaalima siyaasa alislaamiya waxa weeyaan baynu leenahay ugu horeyn inaynu fahmno man anaa qofku inuu garto markaas buu garanayaa cidda uu hiilinayo iyo cidda aan u hiilinaynin qofka muslimka ah ilaahay baa wuxuu qur-aankiisa ku leeyahy inamaa waliyukum allahu warasuuluh wاladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna الصalaata wayu'tuuna الzakaata wahum raakicuun waman yatawala allaha warasuulah wاladiina aamanuu faina xizb allahi hum اlgaalibuun ya ayuha aladiina aamanuu la ttakiduu aladiina اtakaduu diinakum huzwa walaciba min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wاlkufaara awliyaa wاtaquu allaha in kuntum mu'miniin fi suurati lmaa'ida
إلهي بأوحلي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إلهي وحلي وروحا إدين وليه وهيليه هو بيد كمضا وقرقار كينيا رنتي نيا هيل كينيا محبدي نيا كالقعل كينا بالا لي الله سبحانه وتعالى. إذن قضايات كاغو وقضايا الصراع بين الحق والباطل كلما حق الشيء فسياستك معهم، وقضايا مبدئية ورسولي إلهي رسولك سادهي لي هو بلدنا اعتاقنت إيوه والذين آمنوا كوا إيمانك لغهلي وليبا كوا إيمانك لغهلي بأصناف لغسيدي الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وكوا صفات كالي صلاة أوغا يا الزكاة بحنية يعني مسلم حق قوة أوية. إلهي وحكوت المامية ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أفرصه حزبك مسلم قفك مسلم كوا حزبك حزب شيوعي ما من ديمقراطية ما من هرصعدة ما من دمصار حزبك أتكثر صنطي. إلهي بأوحو لي وحاده لنساء أقرقار سواء الله يا رسول كيسة يا كوا مؤمنين تا انت أصبح انت إلهي حزب قرش كقدق إلهي وحلي فإن حزب الله هم الغالبون. إلهي حزب كيسة كوا غالب كا يا أيها الذين آمنوا با إلهي مركالي لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا وكوا إيمانك لغا هلا يوبا إلهي لي هكي لننا كوا أنت لا سارانين أما كوا دينتين كدغتay dheeldheelkiiyo jees-jeeskiiyo waxa lagu ciyaaro ee ahlu kitaabka kamida iyo gaaladii kale idinka horeysayba wal kufaar awliyaha ka dhiganina balay kooxaha ha u heelinina wattaqullaha in kuntum mu'miniin. waxaan leenahay marka qofka muslimkii su'aashiisa koowaad ama siyaasadeena koowaad waxa weeyaan inaynu cadayno dadka muslimiinta iyay u heelinayaan yeeyeen xagay ka tirsan yihiin khalalka ka ku jira. waxaan aad u xasuustaa من هبين دويد بوحة محاضرة جيديني أحمد أبو اللبن عالم كمسلم كي حقا دقن مركزو حسون نقلية لبا قول وآد غريبة وجرائد كعالم كقريين قول ككواد حويان باكستان أي وحا كدعي دورشو ضدتك كقيب قال وحا كمدا أحزاب مسلمين كما هذا لأنه مسألة دائن لقلا ما بنانتهي ما بنانا مسألة سواء مسألة كله لكن waxaan ku tilmaamaya qaba inay banaan tahay hadana bal aqliyadkoodu siday u fakirayeen. doorasho la sameeyay kuwii islaamiyiinta ahaa ee marka ayagu ku dhawaaqayay islaam baan u gargaaraynaa dhanbay mareen al-jamaa al-islaamiyya iyo kuwaas ay hogaaminayaan kuwii u dhawaaqayay an-nizam ad-dimuqraatiyya iyo nidaamada dimuqraasiga ku salaysan reer galbeedka iyo waxaas baan u gargaaraynaa kuwii u dhawaaqayayna dhanbay mareen. qolo nin markaa dee wadadnimo lagu tuhmayay soo wadaan iyo mabdi'iisii iyo mashruucaadkiisii qolana waxay soo wadaan gabadh yar oo reer galbeeda oo maraykan iyo meelaha ka timi oo afka soo casaysatay oo dabeetana wada iyana mabda'a galbeedka ka yimi. bulshadii waxa la weydiiyey istiftaag waa maxay bulshada waxa la weydiinaya markhaataan idin weydiinay kaayaga xaq u leh inuu dadka xukumaa bulshadii la weydiinaya sanadooq iqtiraac macna kale ma leh waa dad bulshadaynu xakam ka dhiganay yiri oo ina kala xukumaya maxay nagu kala xukumayaan war kaayaga xaq u leh bay leeyeen inuu xukunno wax bulshadu marka waxay leedahay dacidaas xaq u leh ugu ridaysa foodkaraad ku ridaysa macnihiisu waxa weeyaan xaq u leh inaad xukunto waa shahaadaduna de islaamka meel bay ka joogtaa aad u khatara شهادة الزور مرقات بيناله حزبي أنا كوكت إنه ضد خيامينيو قيامها مركز يقول رده وننكي ما يشفوله وحدبه آخر قيامك والله قبصنيات كمتي وحدي بيكلي معها ويواتقاني وانا اللي قراني حقه وحوضه أدانا عدك كنسيي معناه هدو حويان هذاك الراليها إن ضدك كله ظلميه وصية نسيه قيامة إلهي هذه وحكاوي ديني وحو قبينك سيادمي وهو موقف كاجي سياسي جاهية تاكتي قفك مسلمك موقف سياسي عد وينو يشاء شهادة وما يكتم إلهي القرآن كوحنا قلت الماما يقفك شهادة قرية دنبي قوليه سيدا وحنطي
qawlat الzuur baa qur'aan ayuu xadiiska nebigu alayhi salaatu wasalaam shahaadat الzuur baa laynoo tilmaamaya intuu wax ka degay nebigu isagoo jiifa inuu soo kacay isagoo aad uga digaya shahaadat الzuur istiftaagan dadka la weydiinaya waa markhaati waa dad la leeyahay war xakam noo noqda war kaayagee gar leh yaa mudan inuu dadka xukumo kaayagee mabda' fiican kaayagee cadaalad wada dadka la weydiinaya istiftaagu yay ahaayeen waxay ahayn mujtamac muslim bakistan waa mujtamac muslima saxanka maaha waxaa guulaysatay banaaziir buuto waxaanay qabsatay bakistan maxay u guulaysatay markhaati bay muslimiintii u fureen inay iyadu fiican tahay hada bas dadka u furayaa ka mid ah alustaad khaliil alxamidi raximah llah ayaa markaasi jariidat lmukhtaar buu ku qoray waxaa la yidhi war maxaa u khasaarteen foodkii soo idinkii dadka islaamiyiinta ee caynkane kitaab iyo sunna ku dhawaaqaya islaam sheegayey ummadda bakistaanna ay ummad muslimiin ahayd soo idinkii kalsoonida qabay haddii ay doorasha dhacdo oo naag iyo laysdhinac dhigo naag mabda gaaleed wada iyo laysdhinac dhigo dad muslimiin oo mabda islaamiya wada in muslimiinta la dooranayo soo idinkii sheegay maxaa u khasaarteen wuxuu yidhi waxyaabaha aan u khasaarnay ugu waaweynaa waxaa ka mida buu yidhi jamaacatu tabliiq baa banaaziir buuta ugu riday buu yidhi intabihuu ilaa hadi alqadiya jamaacatu tabliiq ma tuhmayo waa dad muslimiina waa dad raba inay islaamka u halgamaan waa dad doonaya inay naftooda u huraan jawla intaasay u sameeyaano waa aragteen oo dee sanad ayuu fii sabiili llahi u baxaya intuu soo wareego oo carrigoo dhan soo maro daaciye oo wax soo sheego oo dadka islaamka ugu yeedho kam qof baa aragtay khamri cabayay oo khamriga ka joojiyeen imise aragteen mid suuqa marayo ay salaada bar imisu baad aragtay qof ay diinta kusoo dareen xasanaadkooda iskuma hayno yani markaan nuqdadan tilmaamayo uma jeedo duris aan durayo laakiin waxaan u jeedaa muslimku wajhadiisa siyaasigii inaanay u caddayn mafhuum alwalaa walbaraa bay ahayd inuu qofku taagan yahay oo mafhuum caqiidiya ah oo ah yaa mudan inaad u hiiliso yaa mudan se inaad ka heliso waxaan rajaynayaa muxaadara ku saabsan inuu walaalkeen umalbarita geli doono jazaahu llahu cana khayra si fiican inoogu ballaadhin doono laakiin anigu wuxuun baan rabaa inaan ka hadlo jaanibkeeda siyaasiga ah oo ah waayo walaagu wuu jawaanib badan yahay laakiin waxaan leenahay mafhuumka siyaasiga islaamigii wuxuu ku salaysan yahay yaa mudan in loo hiiliyo jamaacatu tabliiq bimalaayiiniha waxay ugu riday bay leeyihiin maxay banaaziir buuto sababtu waa maxay mafhuum alwalaa'i walbaraa baa fii cuquuli lmuslimiin weli aan waadix noqon haddaynu rabno mujtamaca kan inaynu islaam ku hagno haddaynu rabno mustaqbal islaamiya inaynu soo saarno waa inaynu caddaynaa mafaahiimta waaweyn ee islaamiga ee u baahan inay caddaato sida daraaddeed tusaalaha labaad ee uu soo qaatay axmed abulaban xafidahu llah wuxuu leeyahay turkiya ayaa iyana sanaaduqdii foodka la yimi xisbi rafaah oo uu hogaaminayo najmudiin arbakan oo brofessorka macruufka ah fi caalam algarb buu brofessor macruufa ku yahay fanigiisa caalimkaasi muslimkii uu hogaaminayo oo ku dhawaaqaya alkhilaafa araashida baan ummadda ku celinaynaa waxaananu soo celinaynaa khilaafadii dadka muslimiintaa ka luntay iyo axzaabtii cilmaaniyiinta ee lahaa waxaanu rabnaa annudam algarbiya reer galbeedka ayaa la yidhi sanaaduq ilfawt baa la dhigayaayo waa sanaaduq ilikhtirac oo kaasoo dadkaa la weydiiyey su-aashii baa timi yaa xaqule inuu meesha maamulo dadkii ku ridayay foodadka waxaa ka mid ahaa jamaaco ka mid a jamaacaadka islaamiga ah oo tayaari nuurasi ah tayaarkaasi waa koox ka mid a kooxaha islaamiga ah caalim weyn oo muslim ay ka dambeeyaan caalimkii waktigii atatorkiya noolaa waa caalim runtii diinta islaamiga aada ugu soo halgamay wax weynna usoo qabtay waktigii culamada la laayay ee la cadaadiyey ee inta lasoo qabtay turkiya o dhan waxay caalim lahayd inta meel la isugu keenay buu madaxa ka wada gooyey mar qura in yar baa ka firdhatay oo sheekhulislaamkii turkiya markaasi ay kamid yihiin mustafa sabri ninkii la odhan jiray masr degay falastiin iyo masr iyo meelaha waxoogaa yaroo firdhaday mooyaane waxay turkiya caalim lahayd intuu qabtay kamal ataturk buu madaxa ka jaray dabeetana siyaasadiisii cilmaaniga ahayd buu keenay waa kii wadankii khilaafadii bedelay ee jamhuuriyadu bedelay nidaamkii o dhan bedelay haluma dabeetana caalimka kani wuxuu isku dayey dadka caqiidadii iyo waxoodii iyo mabaadi'diiba ka fasaadee inuu islaamka ku celiyo jamaaca saaxadii siyaasiga ahaydna way xidhantay markaasi markaa juhuuddiisu umay badnayn fi saaxa siyaasiya
jamaaca islaamiya jirto isaga ku taasurtay oo ilaa hadda nool waa jamaaca islaamiya oo degan oo islaamka wada waxaa la leeyahay markii sanaaduuq iqtiraac la yimi gartay ninka leh waxaan ima banaanay iskaga tegeen waxba ku ridin kaasi bal meel isagoo iska joogo waa qoladii iyagu ku socotay sanaaduuq iqtiraac inay wax ku ridayso ayaa ku riday markaasay ugu rideenayo Sulayman Dimriyal ninkan meesha haysta cilmaaniga waa cilmaaniyinta caalamka islaamiga ugu waaweyn macruufka abu kamid ayaa ugu rideen meesha markaa maxaa yaala waxa yaala mafhuum alwalaa walbaraa baan caday waxaan meesha oolin asiyaasa islaamiya mafhuumkeedu waa maxay waa tanshi'at almuslim almunfasil an almushrikiin in la helo muslim shucuuriyan caqiidiyan mabda'iyan munfasil ka baxsan gaalka ka baxsan ولذلك بقى النبي يقول أنا بريء من أقام بين الظهراني المشركين أنا بريء بقى كاهم النبي يقول المشركين تدحدوا ذا نكدة يعني المفاصلة ده وحلا جارتيني حتى هدي جاري كرتاء الهجرة إني جاردو أو قفق مسلم كبري كهذا إلهي بقول عليه لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا لا بد من زيالة بين المشركين والكفر والله دي غير مكاه هيد بقى إلهي يقول عليه لو تزيلوا محي لو تزيلوا نبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بسودوا شيء وساع مرتجا وسيلود دي صلح الحديبية مسلمين مستضعفين كشري مكة وأنا يقرنا إن ضد كمسلمين تي دبتنا إلى يوحي لي هداي كبح لهاين هداي كلاسيب من لهاين قال هذا يا مسلمكم إلى يوحي لي سبحانه وتعالى لعذبنا الذين كفروا وأنه عذاب لهين بكوي قال لكن وحال لقد حفتشكر لا يكوي كلا كل حجرة وحنوبة هن قفك مسلم كي قضايات كي سينو فهمه waxaan leenahay macaalim siyaasada islaamiga koow waxay ku salaysantahay mafhuum alwalaa walbaraa wuxuu ku salaysayay yuu qofka muslimkii u hiilinaya waa inuu noqdaa inuu u hiilinayo qof kasta oo muslima fi anxaa alcaalam meeshii la doonaba ha lagu dhibayo shiishaan bosnia meeshuu doonaha joogo fi Soomaal ayama qof muslim oo mabda islaamiya rumaysan oo la ilaahay iyo rasuulkiisa aanu gargaaraya ayuu hiilinaya idan waa garateen المعالم السياسية الأولى نقطة دي كوات وأهمن أنا مسلم هوية دي أيضا تتيجيو وحا أنسيتايا إيه علامات ضاحي باصبار كأنسيتا أما الجنسية دا أنسيتا ماها الصومالي ماها قومي ماها أفريكان ماها وحاسدا ما هو مسلم إذن ماشا مسلم يعد كلا استانا مع المسلمين ماشا دورشة إسلامية غير كذا يشوغان أنا مع المسلمين waxaan ahay jaanibka islaamiga ku taagan waayo dadka saalixiintii xagga hore ma tagi karaan maxaa ka dhigay dadka saalixiintii inay dadka hogaamiyaan baa ugu fiican ummadii muslimiinta hore waxa hogaaminayay dadkii muslimka ugu fadli badna Abi Bakr Umar rag daba dhiganeen baa hogaaminayay laakiin waxa meesha keenay muxuu ahaa mafhuumkay rumaysnaayeen dadkii muslimiinta waxaan leenahay marka السياسة العالمية كلا واحد لقى يابا مفاهيمته حتى إسلامي حد إنه يجارسي سنتي مشرك يا أهل الكتاب كلا دويسنيه وفي سورة الروم واحد تقال من قصة يكوسي ودكتي إمبيرشيا يا إستيلين محي رومانسك دبا تنوى ببكر كو خماربا ما كو رهني كوسميي نينكا لو قال الرهن كو ودا دكتين قولا صابدنيس قولا صابدنيس ودا قال دحي يلا ما قالو لكن لبدا قالا قولا marka ahlu kitaab sheeganayna xagga diinta u dhawaayeen qolana dabka caabudi jireen mushrikiintii waxay raacsiisayeen kuwa dabka caabudi jiray Abi Bakr muslim rasmi ma ayaa wuxuu raacsiisay hatta kuwa ka soo yara dhadhaw maxay ahlu kitaabka marka ilaahay quraan soo dajiyay uu leeyahay ghulibat ar-rum fi adna al-ard wa min ba'd ghalabihim sayaghlabun waxaan leenay ilaahay wuxuu leeyahay taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin manana yaanu heelinaya ilaahay baa wuxuu ku leeyahay taqullaha وكونوا مع الصادقين وارى لك عبصدة والراعة كو الرنت الشيقية الصادقين مع الله مع أنفسهم مع المجتمع في كل شيء كو الصادقين تكوى كو الراعة إلى إليه سبحانه وتعالى وحكا قران كرتا مركز ومواقفتي كالتاقنايين منافقين إيا أنصار تبات قران كدونتا منافقين وحي أهيلين يهودي iyo nasaara iyo baliya baas bay u hiilinayeen laakiin ansaartii markay qadiyadiisa soo gaadhay muslim iyo xaliifkiisi Sa'd ibn Mu'adh rahimahullah wa radiyallahu anhu markii la yiri reer banu Qurayda maxaad ku xukumi reer banu Qurayda waxay
sameeyeen khiyaana cudma dadkii muslimiintii bay dagaalkii kaga baxeen dhabarjamin bay ku sameeyeen ciidamadii kale wixii bay soo raaceen laakiin markuu mawqifku yimi islaami iyo hayru islaami reer banu qurayda waxay xulafo wada ahaayeen sacd ibnu mucaad qabiilkiisay xaliif wada ahaayeen heshiis gaashaanbuur baa laysku ahaa waagii hore wax layska wada difaaco islaamkaa yimo qabiilkanina wuu islaamay kana yuhuudinimadiisiiba kusii hadhay markii dambe ee qolada qabiilkan uu islaamay yuhuudi waxay ku raacday xaggii xilfiga iyo siyaasadda inay muslimiinta taageerto qolada muslimiinta abay raacday laakiin niman mushrikiina iyo munaafiqiin iyo waxba isu tegayo yuhuud siday u gilgilayeen kolba wax ugu akrinayeen bay safkii muslimka ka soo gooyeen oo yidhaahdeen axzaab baa soo ururtay caalamka oo dhan baa markaa muslimka isugu tegey waayo caalamkii waagaa joogay dee wuxuu ka koobnaa maxay quraysh oo markaa qiyaadadii weynayd lahayd bani khatafaan iyo wixii daba socday yahuud iyo waxay caga ku wateen waa ghaswat alaxzaabka siirada ku maqashaan axzaab oo dhan baa isu tagtay waxa la isugu tegay in muslimka la dabar gooyo dabeetana waa tii cunaqabad bil madiine lagu wareegsanaa ghaswat alkhandaq waa tay dhacaysay waktigaasi oo nebigu kula heshiiyey qoladan inaanay dhabarjabin ku samaynin reer banu qurayda oo madiine in la wada difaacdo ayaa waaxid yahuudiya oo xuyay ibn akhtab iyo waxbaa intay usoo galeen usoo dusay oo barnaamijkii baabiiyey yahuudi waxay aqbashay intay ballankii dumisay inay muslimiinta dhabarjabin ku samayso ilaahay baa jebiyey axzaabtii markay jebiyeen muslimiintu is yidhaahdeen fadhiistana waxyaa soo degay nebiga calayhi salaatu wasalaam malaa'igtu la leeyahay hubkii maanan dhiginayna keeno reer banu qurayda lagu soo duulay reer banu qurayda duulimaadkoodii markuu yimay muddo la hayayna inxisaar baa lagu heshiis gaashaanbuur baa laysku ahaa waagii hore wax layska wada difaaco islaamkaa yimo qabiilkanina wuu islaamay kana yuhuudinimadiisiiba kusii hadhay markii dambe ee qolada qabiilkan uu islaamay yuhuudi waxay ku raacday xaggii xilfiga iyo siyaasadda inay muslimiinta taageerto qolada muslimiinta abay raacday laakiin niman mushrikiina iyo munaafiqiin iyo waxba isu tegayo yuhuud siday u gilgilayeen kolba wax ugu akrinayeen bay safkii muslimka ka soo gooyeen oo yidhaahdeen axzaab baa soo ururtay caalamka oo dhan baa markaa muslimka isugu tegey waayo caalamkii waagaa joogay dee wuxuu ka koobnaa maxay quraysh oo markaa qiyaadadii weynayd lahayd bani khatafaan iyo wixii daba socday yahuud iyo waxay caga ku wateen waa ghaswat alaxzaabka siirada ku maqashaan axzaab oo dhan baa isu tagtay waxa la isugu tegay in muslimka la dabar gooyo dabeetana waa tii cunaqabad bil madiine lagu wareegsanaa ghaswat alkhandaq waa tay dhacaysay waktigaasi oo nebigu kula heshiiyey qoladan inaanay dhabarjabin ku samaynin reer banu qurayda oo madiine in la wada difaacdo ayaa waaxid yahuudiya oo xuyay ibn akhtab iyo waxbaa intay usoo galeen usoo dusay oo barnaamijkii baabiiyey yahuudi waxay aqbashay intay ballankii dumisay inay muslimiinta dhabarjabin ku samayso ilaahay baa jebiyey axzaabtii markay jebiyeen muslimiintu is yidhaahdeen fadhiistana waxyaa soo degay nebiga calayhi salaatu wasalaam malaa'igtu la leeyahay hubkii maanan dhiginayna keeno reer banu qurayda lagu soo duulay reer banu qurayda duulimaadkoodii markuu yimay muddo la hayayna inxisaar baa waa la go'doomiyey go'doon dabadeedna waxay aqbaleen xakam waxay yidhaahdeen xisaarkan ahna laga qaado waananu isdhiibayna laakiin hana xukumo bay yidhahdeen sacd ibnu mucaad hana xukumo sacd ibnu mucaad waa ninka isku gaashaanbuur tahayna qabiil kale odaygiisi iyo dee qabiilka o dhan wadaadka odayga isugu wada ahaa waa caaqilkii reerka waxay ka rajaynayaan dee caaqilka mar haddii xilfi wadaag horoo badan lalahaa waayo waxay ogyihiin mawaaqif hore uu sameeyey cabdillaahi ibnu ubayigii munaafaqa ahaa oo isagu xulafadiisii waa kii nebiga siduu nafta isugu keenayey kasii daayey dabeetana waxay is idhahdeen dee kana cabdillaahiba kooxihiisii sii daayay ninkana wuu idin sii dayn sacd ibnu mucaad laakiin oo dhaawaca oo masaajidka yaalla oo ku ducaysanaya ilaahay ow haydilin shahaado ilaahay weydiistay inuu ilaahay shahaado ku arsaaqo laakiin wuxuu leeyahy ilaahay ow haddana aanay naftu iga bixin intaan reer banu qurayda ishaydu ka doogsan qadiyadda reer banu qurayda meesha ku dhamaato aanan ogaan horteed ilaahay ow haydilin buu ku ducaysanaya iyana waxay is idhahdeen dee ninkii baa isku koox ahaydeen sacd ibnu mucaad hana xukumo bay idhaahdeen nebigu wuxuu yihi waan ogolay sacd ibnu mucaad baa idin xukumaya isdhiiba waa isdhiibeen sacad baa loo yeedhay dabeer baa lagu soo qaado waa la keenay waxaa lagu keenay baa layidhi nebiga iyo muslimiinta iyo kooxdan waxay aad ku xukuntay raalli ku yihiin xukun dee waataa garanaysaan xukunkuu ku xukumay isagoo leh sacd ibnu mucaad maanta ma jooga buu lahaa lawmatullaahi inuu ilaahay dartii cid xanaantiyo waxaasi inuu uga cabsado nebiguna calayhi salaatu wasalaam markuu xukumay waa kii lahaa waxaad ku xukuntay wax ilaahay min fawqi sabci samaawaat kaga xukumay waxaan leenahay waxaa caddaatay ninku cidduu ka tirsan yahi
isku gaashaan buur bay ahayn isku cid bay laakiin waxa uu cadaatay man huwa sida daraadeed quraanku wuxuu ina baraya faman yakfur bitaaguut wa yu'min billah wa mufaasala laga soo baxayo can al-kufri dhamaantii والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله waxaa ilaahay inoo tilmaamaya qad kaanat lakum uswatun xasana fi ibrahim waladiina macah id qaaluu inaa buraa'aau minkum nebi ibraahim iyo kooxdiisii bay idinku sugantay baa la yidhi ku dayasho halkee baynu kaga dayanaynaa nebi ibraahim iyo kooxdiisi markay yidhaahdeen baa ilaahay leeyahy tolkooda ay ku yidhaahdeen beri baanu idinkanay idinka iyo waxaa caabudaysaanba colaad baa inoo dhaxayn doonta xataa tu'minuu billahi waxda xidhiidhkeenu kaawmu ku dhisma ma jecli inaan walaalkay mawduuciisa kasii buhabuheeyo waayo walaalkeen baa inoo caddayn doonaa laakiin waxaan anigu ku dhaafaya mawqifka odhanaya mafhuumi siyaasa alislaamiya wuxuu ka bilaabmaa mafhuumi alwalaa'i walbaraa oo mafhuum caqadiya caqiide ku saabsana oo ah inuu qofku muslimkii fahmo manana ثانيا waxaan leenahay mas'alatu alqiyaada baa timi mas'alatu alqiyaada waa hogaamintii shacabkii wuu fahmay cidii u gargaarayo laakiin shacabku wuxuu u baahan yahay qiyaada maamul iyo hogaamin wuxuu kale u baahan yahay jamaaca waa laba qadiyadood oo u baahan iyaguna inay waadix qofka muslimka caqligiisa ku ahaadaan haddii qofku uu cad yahay mafhuumku rumaysan yahay waa in la ururiyaa dee dadka muslimiinta waa inay organisation ahaadaan waa inay dad urursan yihin waa in dad hiiliyahoo ka dhexeeya yihin waa in dad xidhiidh iyo maamul ka dhexeeya yihin waa inay dad wax wadaaga yihin walidalik baa waxaa taqaanin ahlu sunna waljamaaca waa musطalaxay culamada muslimiinta ku tilmaamaan dadka ugu fiican muslimiinta ama dadka haysta dariiqii nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam ahlu sunna baa lagu sheegay sunnatu muxamed alayhi salaatu wasalaam bay raacsiisan yihin o waxaa kaloo lagu sheegay inay yihiin ahluljamaaca mafhuumka siyaasiga aynu u baahanay inay ummadeenu fahamtaa waa inuu noqdaa mafhuumka inay ummadda muslimkii mid ahaato inay ummadda muslimkii wada socoto inay ummadda muslimkii wax wada qabato see daraaddeed buu nebigu alayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa wuxuu inoogu tilmaamaya mafhuum iljamaaca inay dadka muslimiinta isku yihiin kamathali ljasadi alwaaxid sida jidh qura oo jidhka qayb ka midi haddii ay cabata baa la yidhi intiisa kaloo dhamina soo jeed iyo warwar bay ugu soo jeedaa jidhku qiimo wuxuu ku leeyahay markuu wada jiro laakiin markuu keli keliyay qiimo ma leh yani il haddii halkaa la dhigo laa tanfac waxba ma arkayso wadne haddii halkaa la dhigana waxba ma tarayo calool haddii halkaa la dhigo iyo keliyana waxba ma tarayaan laakiin marka la isku rakibo ay qof isku yihiin markaas bay qiimo leeyihin markaas bay ishu qiimo leeday markaas bay calooshu qiimo leeday markaasuu wadnuhu qiimo leeyay markaasay fartu qiimo leeday laabudda mafhuumka dadka muslimiinta ah waa almafaahiim siyaasiya siyaasadda dadku wax kale ay u haystaan laakiin waxaan jeclay bal sida aniga igu muuqata inaan idin tilmaamo mafhuumka siyaasiga aan u baahanay inuu mujtamacu fahmaa waxa weeyaan ma ka rabno qof saalixoo intuu cibaadaysto god madow galo halkaa ku wardiyo ma rabno waa saalix waa cibaadaysanaya laakiin inuu meel madow keligii gala waxba ma anfacayso waxaa looga baahan yahay inuu ahaado maca alumma alislaamiya midnimada ummadda muslimkaa inuu dareemo xataa markay colaadu jirto caliy bn abi aalib ba khawaarij muxuu ku sheegaya kuwii la socday ikhwaanuna bagaw calayna buu lahaa ikhwaanuna bagaw calayna waxaan leenahay islaamku wuxuu ina barayaa systemkaasi ah inaynu bulsho noqono ummad markaasa xataa cibaadaadkeena shacaa'ir tacabudiya baa laga dhigay wax jamaaco ku salaysan waxaa layna baray maxay cibaada jamaaca salaad baa la yidhi tukada laakiin waxaa la yidhi markay jamaaca tahay bay ka khayr badan tahay keliga waxay ka khayr badan tahay maxay markay jamaacada tahay waxaa layna baray in aynu reebno wax allaaliya waxa jamaacada xumaynaya ha iscaayina ha ismaagina ha isu dhabar jeedinina ha isdulminina waxaan oo dhami jamaacada xumaynaya si jamaacadu ay saliim u noqoto ayaa la yidhi waxaasoo dhan joojiya waxaa layna baray jamaacadu weliba inay ahaato jamaaca munadama jirta
ummadda islaamigii maaha umma mubacsara. idan waxay leenahay dhibaatooyinkayna haysta hadday ka mid tahay bulshadaynu ku barbaarno fawdawiyiin oo nidaamka aqoonoo caynkan, waxaynu u baahanay fardigeenna muslimka inaynu ku barbaarino qof idaariya wax maamuli karo, fakerayo, garanaya inuu noqdo. sidaa daraaddeed ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam goob walba muslimiinta waxay ahaayeen goobo munadama. yani tacaabiirta cajiibka waxaa ka mid ah inuu saxaabi yidhaahdo nebigu calayhi salaatu wasalaam dagaalka wuxuu noo safi jiray buu leeyay sida uu salaada noo safo. bal tacbiirka u fiirso, sida uu salaada noo safo ayuu dagaalka noo safi jiray. yani laabudda min sufuuf, laabudda min umma munadama, ummad maamul iyo nidaam leh waa inay jirtaa. walidaalika waxaan leenahay salaadaheenni, cibaadadeenni, soonkeennii waxaa laga dhigay ummaddu inay wakti qura wada yeelato. xajkeenni waxaa laga dhigay inay ummaddu wakti qura isu wada timaado. zakada aadaab ijtimaaciya baa laynoo sameeyey. waxaasoo dhami waxay ku tusinayaan inaynu u baahanay caqliyo jamaaceed inaynu dadka ku abuurno. caqliyo jamaaceedna abuurmi mayso caqliya tanziimiya inaynu samayno mooyaane. caqliyad maamul iyo nidaam aaminsan, caqliyad xerownimo ahi waxba ma tarto. waxay tartaa inay saxdo mafaahiim qayb ka mid oo deris la dhigaa. laakiin waxaynu u baahanay mafhuum yaroo hadda xarak iyo quriya waxaa maaha waxaan sheegaya. waa ummaddu inay mid noqoto, inay ballaadhnaato, inay ku dadaasho, inta ay sii weynaan kartaba inay sii weynaato, inay haysato. waxaa laynaga reebay markaasi asbaabta jamaacada kala tuuraysa dhammaanteed oo dhan. waxaan u malaynayaa waktigu inuu cidhiidh iska yihi, marka waxaan jeclay inaan soo koobkoobo. qadiyadda saddexaad aan isaga gudbo. waxaynu u baahanay qiyaada. qiyaada markay dadku maqlaan caqligooda waxaa kusoo degdega madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo taasoo qura qiyaadadu maaha. alqiyaada fi kulli mustawayaatiha baynu rabnaa. waar gurigu qiyaadu u baahan yahay. guriga dumistiisa waxa badiya qiyaada xakiima marka la waayo. ninka iyo gabadhan laisdhinac ceryaya iyo dagaalkan iyo waxaan la leeyahay xuquuq baa loo doodayaayo. war dadka muslimiinta xaq quray leeyno xaqa ilaahay dejiyaa loo dooda. ma jirto ra'yi la yidhahdo anigu xaqa dumarkaan u dooda iyo ra'yi yidhahdo anigu xaqa raggaan u dooda. waa ragga iyo dumarkuba waa muslim. xaqa muslimku qofka muslimkiina u dooda, ama gabadh ha ahaado ama nin ha ahaado. ilaahay baa mid walba xuquuq u xadeeyey. xuquuqda muslimkaa dhammaantood loo doona. saf ragna kuma jirno xuquuqu dumarka la sheegayo xuquuqu ragga la sheeg waxaasi waa galbeedka waxa ka yimi. dadis haystay ma ahayn dadka muslimiinta oo rag iyo dumar u kala safnaayo qolaba qolo xuquuq. kuwani way haystaan oo way isgumaysteen. dabeetana xuquuqda xoog baa lagu kala dhacsaday. nidaamka reer galbeed dimuqraadigan iyo waxa kan iyo dawladan doorashada ku salaysan iyo waxa kan waxa qasbay niqaabaadkan iyo cumaashan iyo ururadan yaryar iyo waxaanoo dawladdu hadday waacato dad gilgiliya jooga, ururo xuquuqdooda ilaashaniya jooga. laakiin inaga xuquuqda ilaahay baa ilaaliyo waa tahay yidhi. uma baahnid in loo loolame waxa loo baahan in qofka la siiyo un xaq u lahaa. waxay leenahay marka qiyaadadii baa xumaatay. hadday tahay mustawa albayt guriga, hadday tahay mustawa almadrasa iskuulka iyo malcaamadda, hadday tahay fi mustawa almasaajid masaajidka iyo sida loo maamulayo, hadday tahay fi mustawa aljaaliya, hadday tahay fi mustawa yani alxaraka. alqiyaada ducfi aada u weyn baa ku jira. qiyaadada islaamigii waa ahlulfadliga in la qadimo. dadkii muslimiintii hore waxaa maamuli jiray cidda cilmiga leh, abubakar iyo cumar iyo, laakiin wadaada may ahayn. yani markaanu cilmiga lena niman inta kitaaba soo akristeen un dabeetana kitaaba yaqaana may ahayn. niman nolosha oo dhan yaqaana bay ahaayeen. niman nolosha oo dhan yaqaana ayay ahaayeen. qiyaadadu mutatallabaad tiro badan bay u baahan tahay. waxaynu u baahanay macaalimteena siyaasigii inay ku salaysan yihiin inaynu isu diyaarino inaynu abuuri karno, soo saari karno qiyaadaadkii fi mustawa alcaalam alislaami hogaamin kari lahaa. inaynu u diyaar garowno qiyaadaadkii guri hogaamin lahaa, madrasad, masaajid, urur hogaamin lahaa saynu usoo saari karno. qiyaadadu cilmigoo qura maaha, waayo iimaankoo qurana maaha, diintoo qurana maaha. wax badan bay u baahan tahay. abi dar alghifari radia allahu canhu saxaabi buu ahaa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku sifaynayo inuu yahay asdaqu lahja. saxaabada ninka ugu hadalka cadcadle inuu ka mid ahaa. saxaabi buu ahaa ka mida min asaabiqiin alawaliin, raggii ugu horreeyay islaamo ka mid ahaa. haddana abi dar wuxuu codsaday in maamulka wax looga dhiibo.
alaa tastacmilnii ya rasuula allahi buu leeyay shaqooyinkan aad bixinaysa ilahi rasuulkiisa iyo madanna maamulka waxay kaga dartay wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam abazar ya abadar inaka mra'un daciif inaka mra'un daciif abaadarra waxaa tahay qof daciifa ducfiga abidar xagguu ku jiray ma iimaankaa daciif aha kala wallah abaadar wuxuu ahaa mu'miniintii ugu horeysay ka mid a ma caqiidadaa ducfi kaga jiray kala wallah wuxuu ahaa qof mu'min oo caqiide saxiixa sida ma islaamkoo dacfi kaga jiray may waxaanu wadanin mutatallabaat ay u baahan tahay qofka qaa'idkii uu u baahan yahay sidaa daraaddeed buu nebigu ku leeyay isagoo saxaabi oo cilmi loo iimaan loo kana ayuu ku yidhi daciif idan waxaa leeyahy war wadaadnimo ku heli maysaan maamul wadaadaanu ne wadaadada meesha ha loo dhiibo kuma dhacayso waxaynu u baahanay qiyaada xakiima qiyaadanimo cid cuntanta صaxiix iimaanka iyo diinta iyo ammaanadu waa ka mid min shuruud alqiyaada bay ku jiraan ugu horeeya mas-uuliyaadka waxa koowaada lagu qaataa bay ku jiraan waayo jibriil ilaahay markuu waxyiga u doonanayay muxuu ku tilmaamay ii sheega fi suurati alkawthar maxaa ilahay yidhi muطaacin sama amiin jibriil manzilada la siiye la yidhi waxyi uu mas-uul ka noqonaya shaqadaas u qabanaya professionka waxa koowaada lagu siiyey waxa la yidhi waxa weeyaan maxay waa amiin saaxibu amaana nebi walo la soo diraa muxuu talkii ku lahaa inii lakum naasixun amiin naasix amiin ammaana bay sheeganayeen inantii yarayday doonaysay nebi muuse in shaqo loo dhiibo maxay lahayd ina khayra man istaajart alqawiy alamiin ammaana bay tilmaamaysa cifriitun min aljini muxuu lahaa markuu lahaa anaa soo qaadaya carshigii balqiis mid baa yidhi anaa keenaya intaanad meesha ka kicin cifriit min aljini baa yidhi anaa keenaya muxuu jinku ku dacwoonaya u shaqada ku doonayay mu'ahilaadku watay shahaadaadku watay maxaa ka mid ahaa wa inii calayhi laqawiyun amiin buu lahaa xoog badni iyo ammaanaba waan leeyahy alamaana waa min addiin waatuu nebigu laha calayhi salaatu wasalaam qiyaamuhu dhici maayo ilaa iyo maxay xataa dayicat alamaana amaanadu markay dayacanta mooyaane goormay amaanadu dayacantay marka loo tiiriyo buu nebigu yidhi idaa usida alamru ilaa gayri ahli amaanadu waxay dayacantay marka maamulka loo dhiibo cid aan u cuntamin alamaana waa shardi inkastoo soomaalidu mahmaahaan ka maqlay baa waxaa ka mid ah ninkay adhiga kala quustaan bay geela u dirtaan ba la yidhi ilmahay adhiga markuu kasii daayo la yidhaha geela ha lagu daro geelii baana labada ku qaalisanaa agtooda kay diji kala quusataa bay tidhaha wasiira laga dhigo kay doraad wasiirka kala quusatay berrinta madaxweynaha u dooratay iyo wasiirnimada waa shaakiladay hawdka kala timi ee ahaa adhiga kaka adkaan kari waaya geela ha raacday weeyaan alamaana qadiya bay ahayd macruufa oo qofka mu'minkii uu ku xisaabtamo oo ah qofku inaanu wax qaban karin in amaanadiisa la hubiyo mooyaane 40kii ninkii la ogaaday inuu khaa'imka ahaa ee 50kii la ogaaday inuu khaa'in ahaa ee 60aadkii la ogaaday inuu khaa'in ee 70aadkii la ogaaday inuu khaa'in ee 80aadkii la ogaaday inuu khaa'in ayaa 90aadkii haddana loo dhiibaya ma hada dadku ma maskaxda ka tirsan maya almafahim siyasiya almaalim siyasiya alislaamiya ayaa ghaaiba cinda al-umma ayaan jooginba dadkaan garanaynba cid ay dooran lahaayeen dadkaan garanaynba cidda wax loo dhiibayo waa inaan gartaa intaanan sanduuq الاqtiraac wax ku ridin sanduuqa wax lagu foodeeyo intaan la odhan dimuqraadiyadii way waafooday kusoo rid waa inaan gartaa waxa wax lagu doortay criteriyu waa inuu yacadi maxaan qofka ku qiimaynaya maxaan ku dooranaya markaan maxay ka helaa baan u baahnay inaan ugu rido ilaa markhaatigan ilaahay bay weydiinaya qiyaamaha waa markhaatiga ilaahay bay weydiinaya waa inaan gartaa waxaan wax ku qiimaynayo si aan wax u doorto umma jaahilana ma garata waxay wax ku qiimaysa inay tiraa waa nala reer mooyaane ama waa nala qoys ama waa nala caynkan mooyaane waxaan leenahay marka amaanadu waa shay asaasiya laakiin waxaa kaloo asaasiya baynu leenahay alcilm walkafaa'a in manaasishan qiyaadigaa aqoon loo leeyay iyo cilmi iyo hogaamin tusaalayaal baan idin siinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam aan idinka siiya taariikhdiisi mujtamaca la hogaaniyaya dad baa u haysta mujtamacu inuu mujtamac malaa'ig iyo malaa'ig maaha dadka la hogaamiya waa bashar
mujtamaca basharka maxaa ku jira waxaa ku jira munaafiq waxaa ku jira gaal waxaa ku jira muslim waxaa ku jira taqi waxaa ku jira faasiq waxaa ku jira quraanka waxa alfaad ku aragteen oo dhan baa ku jira mujtamaca la hogaaminayo maaha inta salaada tukatay saful awwalkii aan shanta salaadood ka habsaamin wada saalixiinta ilaahay ka cabsan inta maaha inta la hogaaminaya dad baa wasta mujtamacu inuu nooca noqdo noocan uu yahay una qof waliba wixii ka adigo war nooca maaha mujtamac darajo malaa'iga gaadhay caalamku ma jiro kii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam baa munaafiqiintu halka taagnaayeen joogeen mujtamacu nabigu hogaaminay yahuud baa ku jirtay waayo dawlad islaamiya bay تحت الدولة الإسلامية يهود با joogtay منافقين با joogay bal waqtiyada qaar kood gaala joogtay muslimiin ba joogay Abu Bakar iyo Umar iyo Uthman ba joogay mujtamacu intaas ka kooban yahay la hogaaminaya see loo hogaaminaya waxaan leenahay hogaamintu cilmi ay u baahan tahay iimaanka ka soo cilmi ay u baahan tahay مثلا tusaalaan si munaafiqiinta munaafiqnimadu inkastoo malaa imka siyaasadda nifaaq loo yaqaano nifaaq waa wax aad u khatar ah suurat al-baqara ilaahay markuu muuminiinta ka warramayo 5 aayadood buu ku sifeeyay gaaladii markii laga warramayna 2 aayadood oo qura lagu sifeeyay warkoodaas ka cad munaafiqiintii markii ilaahay ka warramayay 13 aayadood baa ilaahay kaga hadlay 13 aayadood way qadiyadoodu waa qadiyad khutuura badan qof kulana jira kaana jiro meesha joogaan ka maqnayno roorayo waa qadiyad khutuura midana munaafiqiintu had iyo goor masaakiinta ma noqdaan masaakiintu had iyo goor muslim ba iska noqdaan haday islaamaan islaamku iska wada qaataan munaafiqiintu had iyo goor waa kubaraa qowmka atadrun akbar munaafiq fi ahdi sahaba samaray wuxuu Abdullah ibn Ubay والذي تولى كبره أكبر منافق عهدي نبي جوجي عليه الصلاة والسلام وحوها محي عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي نفاق انت لك محاكو كلفي كرسو دوني سما وقتي عبد الله كرسو دوني أركيين لك قاضي وايو بعضي واحد الصحابة مركزي نبي جوجا وربي dhacday waxay tahay غزوة بني المصطلق qadiyad weyn baa dhacday laakiin anu aan meel qura u soo noqdo Abdullah ibn Ubay ibn Sulul wuxuu ahaa nin ka tirsan ansaarta qabiilkay ka tirsanaayeen Khazrajiya ayaan rajaynaya Aws iyo Khazraj dagaalo badan baa soo maro xarb bucaas ugu dambeeyay oo 5 sanadood la istilayay in yar ka hor intaanu islaamku soo gaadhin mararku islaamku soo gaadhay bay nabad qaateen ayaa labadii reer heshiiyay waxyaabii lagu heshiiyay waxa kamid ahaa in Abdullah madax laga dhigo oo suldaan loo doorto oo labada reer bay isku hogaamiyo Abdullah suldaannimadii buu sharaxnaa dabeetana waxa loogu tala jiray in loo tolo خرزقي waxa loo tolayay taajki iyadoo taajki Abdullah uu socdo ayay baadhi saxaaba Madiina yimaadeen oo qoladii bay'a al-aqaba ay bay'a al-aqaba thaniya dhacdo dabeetana reer Madiina islaamka soo gaadho nabigu Mus'ab ibn Umayr uu soo dirayo Mus'abna uu diintii ku faafiyo dabeetana islaamkii xoog u faafayo ilaa hijradii dambe ay dhacdo nabiga iyo saxaabadiisii bay soo hijroodeen nabigu wuxuu soo galay baa la yiraahdaa Madiina iyadoo ninkii la odayga ayaa la oran jiray Abdullah ibn Ubay uu u sharaxay kursiga madaxtooyada Madiina oo markaasi taajka loo toli lahaa ayuu nabigu soo galay dabeetana dadkii islaamkii bay raaceen qadiyadii bay isbedeshay alwalaa wal baraagi baa dhan kale u janjeersaday dawlad islaamiya baa meeshii ka asaasantay dadkii nabigoodii bay raaceen Abdullah colaad buu qaaday nabi maxamed kursu ka qaaday colaadaas buu qaaday oranaysa nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ka qaaday kursigii dabeetana wuxuu bilaabay Abdullah oo aanu marnaba u yaraysan sidoo mujtamacan muslimka iyo dawladda islaamiga u dumin lahaa wuxuu bilaabay intaanu soo islaamin hada saxaabada nabiga u yimaadeen waxay dhahay rasuulullaahi kaalay bal majliskayga soo wacdiyo meeshu soo maray nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yimi Abdullah ibn Ubay oo majlis fadhiyo uu soo agmaray Abdullah ibn Ubay ba afku ka xidhay nabiga alayhi salaatu wasalaam isagoo leh la taqburu alayna annaga boorkiina iyo qurunkiina xagga noola dhaafa bulay
nabigu calayhi salaatu wasalaam kooxdii meesha fadhiday buu qur-aan ku akriyey. markuu xoogaa ku akriyey ayuu wuxuu ku yidhi ijlis fii baytika walaa takshana fii majaalisina, gurigaaga fadhiso hanaga imanin majaalista iyo wax iyaga kan. waa markii uu weli gaalnimadiisa caddaysanayay. laakiin siyaasiyiinta waxaa lagu yaqaanaa kaadhka hore hadduu u socon waayo inuu deka labaad la baxo. waa wariqa maxruuqa inaad noqotaa, waa doqoniimo inaad meel iskaga adkaysato oo dabeetana ilan iyagu mabdiyiin maahe waa maslixiyiin. dee maslaxaddu xaggaa u socon weydo, hadday xagga kala u soconayso dee waa la istaad raaciya, xagga kalun baa loo raaca. sida daraaddeed cabdillaahi gaalnimadii wuxuu arkay in dadkii laga kaxaysto dee meeshii aanay kursigaasi aanu xaggan ka soo noqonaynin. dabeetana wuxuu damcay inuu xagga haddaba isu daad raaciyo, xaggaa warjiraaye inuu xagga kan islaamnimadii bu iska soo qaatay. laakiin maxay noqotay islaamnimadiisu sheeganayay? waxa weeyaan walaa walbaraagiisi muu caddaanin. sida daraaddeed ghaswatu banu qaynuqaac, reer banu qaynuqaac waxaynu naqaanaa inay gabadh muslimada qaawiyeen. dabeetana gabadhii nin muslimi uu diriray oo kii qaawiye waxyeelay, dabeetana isagii la dilay. haluma dagaalo halkii ka bilaabmay. nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisaa soo duushay iyagoo cirdiga qofkii muslimkaa ilaalinaya iyo ninkii la dilay. 15 maalmood baa lagu hayay cunaqabatayn, hareeraa lagaga wanaagsanaa. akhiiran waxay aqbaleen inay isdhiibaan, ayay aqbaleen oo xukumka nabiga calayhi salaatu wasalaam ay u hogaansanaadaan. bacda shahr, yani waa bacda shahr min islaami. 15 maalmood buu xisaarku soconayay. laakiin cabdillaahi markaa intuu islaamka cadaystay bil qura laga soo wareegay. gebigiisuba saxaabadaba wuxuu la joogaa maxay? waa bil waaxida. bisha uu la joogo 15 waxaa socday xisaarkaa socday. macnaheedu waxa weeyaan rabshadan intaanay dhicin 15 casho ka hor ayuu ninkani diinta soo qaatay ama uu islaamnimadiisa sheegtay. laakiin cabdillaahi mawqifkiisii buu taagan yahay oo ah reer banu qaynuqaac iyo isagu qabiilku ka dhashaa xilfi gaashaanbuur horay lahaayeen oo qoladani de qolada odayada u ahaan jiray bay ay yuhuudda ahayd. cabdillaahi islaamnimadiisu dee ismay dhiibina safkan iyo waxaan inuu khalkhaliyaa un bay ahaydeen. wuxuu nabiga intuu ku dhagay buu leeyahay axsin fii mawaalay, ii hagaaji u samafal nimankaanu gaashaanbuurta wada nahay. nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yaro dhagaaday, muu rabin inuu aqbalo. hadalkiibuu ku celceliyey oo ku celceliyey oo ku celceliyey. nebigu ka dayn waayey, nebiguna uu ka sii jeestay ilaa iyo markii dambe nebiga ku dhagay halkaa. fatxada yare uu leeyahay jeebka, waa fatxadan yare khamiiska uu leeyahay. halkaas buu nebiga qabtay calayhi salaatu wasalaam cabdillahi ibnu ubay isagoo leh axsan fii mawaalay. nebiguna intuu cadhooday ayuu wuxuu leeyahay waari sii daa buu nebiguna leeyahy. ilaa iyo wejiga nebigu calayhi salaatu wasalaam uu madoobaaday si uga cadhaysan ninkani uu leeyahy waari sii daa. muu aqbalin. way xakarsilni buu nebigu leeyahy, isna kama aqbalin. laa wallahi laa ursilik buu leeyahy xataa tuxsina fii mawaalay. ilaahay baa ku dhaartay inaanan ku sii daynaynin ilaa iyo dadkan ii sii dayso. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy cabdillahi ibn ubay ba wuxuu leeyahy waa 400 oo nin oo 400 xaasir wa 300 daar. 400 oo nin oo yani hubaysan iyo 300 oo nin oo duruuc. waa nimankii buu leeyahay nin madow iyo nin cad bay iga ilaaliyey. ayaa doonaysaa maalin qura inaad wadalayso? ma ogoliya halaysii daayo. anigu waxaan ahay buu leeyahay. laakiin markuu qadiyadan leeyahay ma wuxuu iska dhigayaa nin qoladan la socda munaafiqiin yuhuudda? maya. inii imra'un akhsha dawaa'ir buu leeyahy. politically maslaxad baan inoogu jirin buu leeyahy, yani maslaxadda mujtamaca alxumayni. haddii nimankan la laayo rabshada ay ugu badanayso, dagaalada badan iyo caynka. inii imra'un akhsha dawaa'ir buu leeyahy. anigu waxaan ahay nin dhibaatooyinka dambe iyo cidhxumada ka baqaye ha la sii daaya buu leeyahy nimankan. nebigu calayhi salaatu wasalaam munaafiqan wuu ka aqbalo, wuu u sii daayey. hadda u fiirso, waa cabdillaahi, waa 400 oo yuhuuda, waa goob dagaal, waa mawqifka caynkaasiya. wuu aqbalo, wuu isaga sii daayey. mawaaqiftiisa siyaasigaa baan doonayaa inaan tusiyo iyo haddana sida loo wade loola dhaqmayay. waayo qiyaadadu may ahayn un abubakar iyo cumar may maamulayni maca munaafiqiin maca yahuud maca waxaan o dhan bay qiyaadada islaamiga isku waday. sida daraaddeed ghaswatu uxud waa tii la qaatay mawqifa in la dagaalamo oo laga hor tago gaalada. waa tii laga hor yimi. bartanka markii la marayey uxud in yar loo soo jiro, ciidanka muslimiintu marka ay wateenba 1000 qof bay ahaayeen. ayuu istaago intuu u khudbaday 300 oo qof buu dib u ceshaday. arag ninku siduu sumcadda u leeyahay dadka dee weli badh baa dhegaysanaya. 300 oo qof ayuu dib u celiyey.
300 qof markuu dib u celinayay ma dhabbaayo ra'yigiisiiba la qaadan waayo. dadka badh baa waxay leeyihiin markii uu xaggeer madiine gudaheeda joogu ra'yi soo jeediyo ra'yigiisiiba aktariye laga raaco ma dhabbaayo ra'yigu qaadan waayo. ma qabo, waayo hadduu masalada marka horeba diidana demu iska hadho muxuu soo doonayay. wuxuu rabay balbala fi saf inuu sameeyo marka ay muslimiintu xaaladdu ugu adag tahay inuu jabiyaabu doonayay. waayo haddaanu dagaalka doonayn madiinaba kama soo baxeen oo iska hadhi lahaa. laakiin markii horena wuxuu rabay intuu dadka ku soo daray isagii munaafiqiintiisa wuxuu dhamay inay soo raacaan. marka labada ciidan isku soo dhadhawaadaanna oo 3,000 ciidankii gaaladu iyo halkan degan yahay inuu muslimiinta safkooda intuu khalkhal ku rido oo laba u kala jabiyo dabeetana ay niyad jabaan oo isdhiibaan. sidaa daraaddeed markii mawqifkii lagu soo dhawaaday buu 300 oo ciidankii kamida la noqday si uu safka balbala ugu rido. ilaahayna waa kale wa fiikum samaacuuna lahum. muslimiintu markaanu walaa walbaraa caqiidadiisi xoog u dhisnayn, mafhuumkiisa siyaasigii markaanu caddayn, markuu qofka iska ade qof wanaagsan moodayaanu waxa niyadda ugu jiro ogeyn, waxa laga yaaba inu israa ninkan weyni sax weeyaan ama sabab kale inuu dhageysto. markaasaa ilaahay leeyahay wa fiikum samaacuun. waxa idinku jira yahuudan iyo munaafiqiinta iyo waxa qaar u dhagraaricinayo waxay sheegayaan dhageysanaya. nabigu ninkan mawqifkiisa wuu ogaayay, wuxuu ilaalinaya mujtamaca kan. waayo ilaa xad buu gaadhsiiyey 2 طaa'ifo oo banu xaaris min alaws iyo banu salama min alkhasraj xataa ay noqon gaadheen iyaguna 2 kooxood oo saxaabada ka mid oo aws iyo khasrajba ka mid ah ayay iyana ku sigtay inay dagaalka iskaga noqdaan. oo ilaahay qur-aanka ku sheegayaa leeyahay id hama طaa'ifataani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wacala allahi falyatawakal ilmu'minuun. waxaan leenahay wuxuu samaynayey inuu balbala safkan ku rido. ninka caynkaasi iskama wada dhigayn dee nin islaamka nacib ee wuxuu ah xagga kalena nin iska dhigayo inuu islaamka u gargaarayo oo wakaasoo arrimo cajababa laga sheega. ibnu hishaam baa wuxuu leeyahy munaafiqa kan khadaaciisa foolxumadeeda buu yidhi siduu u dhaqmi jiray. marka uu nebigu maalinta jimco khudbadaynayo ayuu nebiga hortii buu istaagi jiraa la yidhi salaada jimce. nebiga hortii ayuu istaagi jiray. markaasuu wuxuu odhan jiray hada rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam bayna adhurikum akramakum allahu waacaza bikum fansuruuhu wacazaruuh wasmacuu lahu waatiicuuh. warkani buu yidhaahdaa waa ilaahay rasuulkiisii oo ilaahay idinku gargaaray oo waa kan ee u gargaara oo u hiiliya oo waa kaasoo dabeetana wuu fadhiisan jiray. waa khudbadda jimce intaanu nebigu jeedin buu intaa kasii hor jeediya oo leeyahy nebiga ha loo hiiliyo ha loo gargaaro ilahay baa dabeetana wuu fadhiistaa baa layidhi. ghazwatu uxud markuu wixii sameeyey ee uu tegey ayaa jimcihii dambe muslimku isu yimaadeen. ibnu hishaam wuxuu leeyay jimcihii dambe isa soo taagay haddana foolxumadiisa isagoo le hada rasuulu llahi acazakum allahu bi isagoo le. waayo ninkani da siyaasiya buu rabaa inuu cayaaro mar rabo inuu bulshada ka baxo ee weli wuxuu rabaa toobkaa islaamnimada inuu sito. wuxuu ahaa itisaalaat badan nin lale gaalada iyo yuhuudda iyo waxa kan oo waa ka qur-aanku tilmaamayo inuu lahaa xataa lain ukhrijtum lanakhrujanna macakum. weedhahaasoo dhan waa ka sheegay. maxaan uga jeedaa ninka caynkaasiya maalintuu wararka sheegay ee layukhrijana alcaza minha ladalla u sheegay ee wiilkii yaraaye zayd ibnu arqam uu warkiisii iyo adeerkii u sheegay adeerkiina nebiga usoo sheegay calayhi salaatu wasalaam ee akhbaartiisii ay caddaatay ee odayadii yimaadana ay dhaheen lacalla wiilka yar baan maasaani waxu maqlayn ee ninka weyne waxa kuma hadal ee ilaahay qur-aanka soo dejiyey wiilka yar warkiisa run lagu sheegayo oo la sheegaya cabdillaahi inuu munaafiq yahay waxa kaloo dhan sameeyey ayuu cumar yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo mur cabaad ibnu bashar falyaqtulhu. cabaad ibnu bashar ninkan ha dile far buu yidhi hala dila kan. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi fakayfa ya cumar ida taxadata annaasu ana muxamadan yaqtul asxaaba. maxaad odhan doontaa nebi cumarow hadday dadku hadhow ku sheekaystaan yani qadiya siyaasiya waa nuduuj siyaasiya maxaad yeeli doontaa buu nebigu leeyahy cumarow hadday dadku hadhow ku sheekaystaan maxamed asxaabtiisuu laaya. isagoo koog inuu munaafiqiyay ayuu maslaxo ka weyn u ilaalinayay inaanu dilin loo reebayay sida tan. dabeetana nebigu farsamo kale uu helo ah dadka ugu yeedh buu yidhi inay guuraan. waa la raray dadkii habeenkii oo dhan bay socdeen maalintii dambe oo dhan bay socdeen waagii dambea u beriyey naftiiba iyagoo haysatuu meel dejiyo waa la wada daato waa la seexday ilaa dadka maskaxdoodiiba wixii ka maydhmeen. dabeetana ilaahay qur-aan soo dejiyey wararkan kaga warramaya. qadiyaddaan uga jeedaa maxay tahy waa dambe markuu fadeexadihii cabdillaahi ibnu ubaya ay caddaadeen ayuu wuxuu leeyahay ibnu hashaam nebigu wuxuu ku yidhi cumar
كيف ترى يا عمر أما والله لو قتلت يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنف كورن بوكو يدي عمر أما أرنك السيداد وارك سامانتي عبد الله وما لن دنبود منافق نمدي سي عداتay oo ragii berigi hore u yara xaglinayay wada ogaadeen oo la yiri waar munaafiq iyo ka bax dadka lagu yiri haddaan maalintii buu nabigu yiri dili lahaa dad baa maanta maalinta la caroon lahaa ama qabiila ku raacmo kale dad baa la caroon lahaa laakiin maanta buu yiri wala waamartu hal yawma biqatl la qataladu kuwi maalinta u caroon lahaa maanta haddaan idhaahdo dila way dili lahaayeen markaasuu Umar yiri qad wallahi alimtu lamru rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam a'zamu baraka min amri waxaan uga jeedaa qiyaadadu mutatallabaat badan bay qabtaa mujtamac baa laga rabaa inaad hogaamiso jaaliyad yar masaajid organization yar inka weyn dawlad mujtamac waa inaad ku tala gashaa mujtamac malaayiga inaanad hogaaminayn ee waa inuu qofka qaa'idka iyo qof wadi kara munaafiqaasi iyo yahuudiga iyo gaalka iyo dadka muslimiinta isku wadi kara مبدأ وينه مبدأ إسلامي لكن قفك قائدك أي تجبندي سيا واحد لوجا بهني معها أكلية وذات بانهي واحد لوجا بهني فرصة ماذا ينقرني administration كيسيا مامل كيسيا وحيسيا ينقرني وعشان علي ولا يدي بور قدر ليسي ملاكارك عصام بحر سنة ريها بكار عسبة لتاكي وعشان علي أنا كسوق وورد معالم في سياسة الأمة هذا ينربينه تلمامين waxaynu sheegnay nooc min alcaqabaat in hor yaala waxaynu u baahanay macaalimteenu inay irtikaasto qofka muslimka inaynu fahamsiino ku yahay cid uu heelinayo cid uu gargaarayo thaniyan inaynu garadsiino ummadda muslimka inay jamaaca la noolaan karaan oo ay jamaaca ka maarmin mafhuumkaasi idaariga ee maamulka leh jamaacadan inaynu ku abuuro thalithan inaynu dadka u diyaar garayno siday qiyaada u noqon kari lahaayeen ummadad hogaamiya ummana marka ummad la yiraahdana nooc waliba uu ku jiri doona oo ma helay sidoo nin yaroo wada weysaysto salaatuleelka tukatee waxaad hogaamin doontaa dad munaafiqiin iyo nooc walba leh jamaacadu nabigu hogaaminayna noocaas ahayd maclasaf waxa dareemaya in badan inaynu kuraasiis ka fuulay jaaliyad iyo meelo badan leh inagoo aan saa dadka loo hogaamiyaba waxba ka aqoon hogaamintu se waxay u baahan tahay mawaahib way leedahay ilaahay uu bixiyo oo qofka la siiyo لكن waxay kaloo leedahay ashyaa muktasaba la barto oo la fahmi karo la garan karo min alkitab wa sunnah hadii si fiican loo daraaseeyo waa laga fahmi karaa culumta basharkuna tajribo badan bay leedahay waxaan ku soo koobayaa markaasi mutatallabaadka qiyaadigaana waynaynan ilaabin mujtamacana waa inaynu ku talagalnaa mujtamac inuu yahay wax waliba ku jiri karaan ka loo baahan in la hogaamiyo ee malaa'igana aad hogaaminaynin wallahu a'lam billahi tawfiiq